soo dhawaada asxaabay waxa la soo saaray aflaan badan oo cajiib ah oo ka hadlaya dhacdooyin xabsiyada laga baxsanayo waxaanu dad badan ficilkaasi wala muuqday mid fudud halka dhacdooyinka isku day ee xabsiyada laga baxsanayo ee muuqaalkan idinku soo bandhigi doonaa ay dhibaatooyin gaar ah sababi doonaan barnaamijkeenan maantana waxaan ku soo bandhigi doonaa bar kamid ah isku dayada ugu la yaabka badnaa ee maxaabiistu dooneen inay jeelasha kaga baxsadaan dhacdooyinkan waa kuwaan hore loo arag loona maqal sida awgeed muuqaalka ilaa dhamaadka sii daawo si aad uga bogatid laakiin ugu horreyntii waxaan idinku codsanaynaa inaad like-na siisaan si ay dhiirigelin ugu noqoto sidoo kalena subscribe taabataan si ay idin soo gaadhaan muuqaalada dambe aan soo gelinaa ugu horreyntii ma jiro xabsi ka ilaala badan xabsigan lagu magacaabo Alcatraz dhab ahaantii waxaa hore u jiray dhacdooyin badan oo lagaga baxsaday jeelkan dhacdooyinka hore u jirayna ma jirto mid ka caansan midii dhacday bishii Juun sanadii 1962 waynu ku nuuxnuuxsan doonaa dhacdadaasi balayna horta xaqiiqooyinka hordhacay xabsigan dul istaagno waxa la sheegay in xabsigan loo adeegsan jiray maxaabiista rayidka intii u dhaxaysay sanadihii 1934 ilaa 1963 walibana waxa lagu xareyn jiray maxaabiista kuwa ugu halista badan waxa laga dhex dhisay bartanka jasiiradda 1.25 mayl ka fog magaalada gobolka California ku taala ee San Francisco xitaa haddaad awoodid oo ku suuro gasho inaad ka cararato ilaalada kadibna aad ka gudubto derbigan dheer ee wadataarka ah waxaad wajihi doontaa dhibaato kale oo adag tahay inaad ka badbaado dhibaatadaasina waa qaabka aad uga badbaadi lahayd biyahan badan ee badda ee dhan kasta xabsiga kaga hareeraysan sababta awgeedna waxaa xabsigan lagu tilmaamaa inuu yahay mid kamid ah jeelasha ay qayru macquul ka tahay in laga baxsado marka laga reebo xiritaanka ninka lagu magacaabo Frank Morris oo suuragal ka dhigay in laga baxsan karo jeelkan ninkan waxa uu ahaa mid aad u caqli badan waxaanu caqli badnidiisa u isticmaalay inuu jeelkan aadka wiilaaladaada kaga baxsado isagoo kaalmo ka heliyay laba wiil oo walaalaha oo iyaguna la baxsan doona marka dambe waxa uu ka warqabay ninkani in gadaasha god kasta oo ku yaala marinka uu isleeyahay mar inaanay ilaala askari joogin waxa uu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu isku keeni lahaa qalabkii uu gidaarada ku qodi lahaa waxaanu gacanta ku soo dhigay qalabkan inoo muuqdo oo qaada kow ka tahay waxa uu awooday inuu qodo darbiyadii uu bartilmaameedsaday waxaanu ugu horreyntii furay godkan oo ku dhex yaalay qolka uu ku xidhan yahay markii dambe markii arrimihiisu duba dhaceen qalabyo kalena uu helay waxay ahayd waxa kaliya uu markasta ka warwaraya qaabka uu yareyn lahaa sanqadha qalabka qoditaanka waxaanu caqabada kaga guuleystay isagoo qoditaanka kaliya qabanaya waqtiyada ay rabshada iyo buuqu jiraan haddii aanay xabsiga dhexdiisa buuq iyo saxmad ka jirinna waxa uu codka qalabka qoditaanka ku dhex qarin jiray qalab muusig oo uu haystay waxaanu daloolka koowaad ee qolkiisa ku dhex yaala ku qarin jiray looxo eeg derbiga xabsiga si aanay ciidamada ilaalada u arag una moodin inuu wado qorshe baxsad ninkan Frank Morris iyo labada nin ee kale walaalahayba waxay adeegsan jireen wajiyo samaysa waxaana wajiyada samayska saari jiray sariirahooda si marka dusha looga eego loo moodo inay joogaan kadib saddexdoodiiba waxay awoodeen inay ka dhex baxsadaan jeelka waxaana nasiibkooda heleen laashasha ay biyaha kaga tallaabaan waxaa hawshan la wadawaday shakhsi afraad oo kale laakiin nasiib xumadiisa lama baxsan saddexda kale arrinta nasiib xumada ahayd ee shakhsiga afraad ku dhacdayna waxay ahayd inuu gidaarkii daloolay ee qolka ku dhex yaalay u adeegsaday sibir si aan loo arag saddexda kalena si bilaa turxaan si ay ugu soo jabiyaan gidaarada kale ee gudaha ku yaala waxa la gaadhay habeenkii ay baxsan lahaayeen waxaana kii afraad ee gudaha ku jiray noqotay inay daqiiqado badan ku qaadato sidii gidaarkii mar labaad u jabin lahaa laakiin kuwii kale way si kari waayeen intuu ka soo baxayo waanay ka tageen sida awgeed ninkan afraad waa ninka soo wareegay qisada iyo xeeladii ay saddexdii nin ee hore kaga baxsadeen xabsiga Alcatraz waxaana sheegtay hay'adda Mareykanka ee FBI-du inaanay saddexdan nin ka badbaadin biyaha badda taas oo la micno ah inaanay banaanka u gudbin ee ay ku qariiqmeen biyahan xabsiga ku hareeraysan laakiin waxaa jirta xan kale oo sheegaysa inay nimankaasi ka badbaadeen biyaha badda galeen waddanka Brazil haddaba daawade ma isleedahay Frank Morris uu ka badbaaday xabsiga noogu reeb aragtidaada halka hoose ee faalooyinka qisada labaad 2016 waxa uu awood u yeeshay maxbuuskan tuugnimada lagu soo xiray ee lagu magacaabo Rastam Shakradinov inuu ka baxsado xabsi waddanka Ruushka ku yaala ninkani waxa uu jiraa 25 sano waxaana warbaahinta Ruushka u yaqaanaa ninkii abeesada ahaa waxa uu ninkani qaabaalan rumaysan karin uga baxsaday xabsigii uu ku jiray waxaanu ka dhacay daloolka yar ee maxaabiista cuntada looga dhiibo markii hore uu ka bixi kari waayay oo maryaha uu xiran yahay ayaa u suuragelin waayay laakiin markii dambe intuu maryihii iska wada siibay ayuu si caadi uga baxay daloolkii sida kamarada ammaanka inooga muuqatana markuu daloolkii ka baxay waxa uu xidhay maryihiisii waxaanu isaga baxay sidii qof aan waxba samayn qisada saddexaad ninkii koobka ka baxsashada xabsiyada la siiyay Yoshi Shiratori waa nin u dhashay waddanka Japan waxa uu marar dhowr ka baxsaday xabsiyo kala duwan ilaadii horena ka baxsashada jeelasha Japan aad ay u fududaayeen qofna kuma adkayn laakiin laga soo bilaabo bartamihii 70-meeyadii qarnigii la soo dhaafay waxa yaraaday isku dayga ay maxaabiista Japan ku jeelasha kaga baxsanayaan ninkan aynu ka sheekaynayno waxa uu horreyntii lagu soo qabtay eedayn loo haystay oo ahayd dil iyo dhac waxa lagu xidhay xabsi lagu magacaabo Amori laakiin waxa uu awooday inuu iska siibo katiinadii gacmaha kaga xidhnayd kadibna uu fakaday ilaa mar kale la soo qabtay kabacdina la dhigay jeel aan ahayn kii hore uga baxsaday oo lagu magacaabo Akita
laakiin habeen kasta wuxuu isku dayi jiray inuu baxsado oo waxa uu fanan jiray dusha sare ee xabsiga habeenada ka mid ah wuu ka baxsaday xabsigii labaad ee lagu xidhay waxaanu dib u helay xorriyadiisii laakiin xorriyadaasi may noqon mid sii waarta waa la qabtay waxaana loo soo wareejiyey xabsi kale oo lagu magacaabo Abshiri waana xabsi ilaalo adag oo shabaha xabsigii aynu hore uga soo hadalnay ee Alcatraz markan waxa meel lagu laxay dambiilayaashii ugu xumaa laakiin xaqiiqadii taasi kamay joojin baxsadkii uu sameyn jiray waxaanu biyo kastoo milix loo la siiyo ku shubi jiray albaabka xabsiga taas oo ka dhigtay inuu albaabku daciifo mililo qoloftuna ka siibato intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka 25 August 1944 waxa uu Yushi Shiratori ka dhacay daaqadii yareed ee maxaabiista xabsiga looga dhiibay cuntada waxaanu sidaa kaga baxsaday xabsigii la qabay haddana waxaana markan la geeyey oo loo wareejiyey xabsi lagu magacaabo Sapporo waxa markan isiga kaliya ilaalo khaas looga dhigay 6 askari oo kormeeraya 24 saacadoodba haddana iyadoo sidaa daran loo ilaalinayo wuxuu ku guuleystay inuu ka baxsado waxaana muuqaalka dhamaadkiisa ku sheegi doonaa qaabka uu markan uga baxsaday ilaalada adag qisada afraad waxa lagu tiriyaa ciyaarta yoogada mid ka mid ah jimicsiga ugu faa'iidada badan jirka aadanaha laakiin sidee buu qofay isagoo ka faa'iideysanaya jimicsigan kaga baxsan kara xabsi waxa uu ku guuleystay ninkan jira ka takasano yoogada aadka ku dheereeya ee lagu magacaabo Shay Gabo inuu ka baxsado xabsiga ninkan waxa la soo qabtay isagoo waxadaya waxaana lagu xidhay mid ka mid ah jeelasha ku yaala koonfurta Kooriya waxaana ahayd qaabkii uu ninkan jeelka uga baxsaday inuu jirkiisa mariyay saliid ka horna uu jimicsiga yoogada aad u sameeyay waxaanu saliida jirkiisa u marinayay jimicsigana uu sameeyay sida uu markiiba uga siiban lahaa meeshan yar ee cidhiidhiga ah ee maxaabiista cuntada looga dhiibo waxa uu sugay inta la gaarayo goorta ilaaladu seexanayaan isku dayo badan kadibna waxa uu ku guuleystay inuu ka baxo meeshan yar kadib markii uu 6 casho ka cararayay askarta iyo goobtii xabsiga waxa nasiib xumadiisa la soo qabtay mar kale waxaana mar kale dib loogu celiyay xabsigii qisada shanaad ninkan waxa lagu magacaabaa Joaquin Guzman waxaana lagu naanaysaa Ali Chapo waxa lagu tilmaamaa inuu yahay dambiilihii ugu khatarsanaa ee soo maray taariikhda Mexico waxaana la cadeeyay inuu madaxweyne u ahaa isbahaysigii Sinaloa Cartel waa urur u abaabulan inay dambi geystaan daroogada iyo lacagta sharci darrada ahna ka ganacsadaan waxa la aasaasay awaakhirkii 80-aadkii waxaana ururkan caasimadu ah oo iska abaabulaan magaalada Culiacan oo raacsan deegaan degmada Sinaloa magaaladan oo waqooyi galbeed kaga beegan waddanka Mexico Joaquin waxa gacanta ku dhigay booliska waxaanay moodeen inaanu ka baxsan karayn waxa uu ninkani caan ku ahaa inuu markasta ku dhex qubaysto qolka uu ku xidhan yahay waxaanu qubaysiga ku dhex qarinayay hog uu qodayay oo uu hoos u qoday ilaa 30 feet 12 July sanadii 2015 waxay ilaalada xabsigu maqleen in tuumbada biyaha lagu qubaystaa ay in badan iska soconayso way shakiyeen way soo kiceen waanay eegeen mise waxay arkeen isagoo godkan dheer qoday baara markay sideen waxay ogaadeen inuu goor hore ka baxay meesha banaanka markuu baxayna uu qaatay baaskeel uu ku tagay meesha uu rabay arrinka la yaab kale waxa uu yahay in dambiilahan weyn aanay ahayn markii koowaad ee uu ka baxsaday xabsiyada 2014 waxa uu lacag badan oo laaluushka siiyay askartii saldhigga ilaalinaysay isagoo caawimada ka helaya bar ka mid ah ilaalada uu laaluushka siiyay waxa uu ka baxsaday xabsigii isagoo isku qarinaya sanaaduuqda dharka lagu dhaqo waxaana caawin kale siiyay ninkan lagu magacaabo Chafir Kangaros oo mas'uul ka ahaa sanaaduuqda dharka xitaa 2014 waxa uu wajigiisa ku sameeyay qaliin isqurxin ah isagoo intaa raba inaanay boolisku wajigiisa aqoonsan laakiin guntii iyo gabagabadii waxa la daydayaba waa la qabtay waxaana mar kale loo taxaabay jeelka iminkana waxaanu sheegi doonaa qaabkii uu Yushi Shiratori uga baxsaday xabsigii ilaalada adkaa xaqiiqdii ilaaladu waxay sameeyeen laba khalad waa tan koowaad ee wax su'aalaha iskamay weydiin inuu ka baxsan karo dusha sare ee xabsiga waa talabaad ee waxay isku waafaqeen inaanay daruuri ahayn inay katiinad gacmaha kaga xidhaan si kastaba ha ahaatee waxa uu adeegsaday qalabka wax lagu qodo ilaa uu si fudud sida uga baxsaday xabsigii ilaalada adkaa may kala hesheen mawduucan asxaabta sharafta leh ee kanaalka iftiinka dunida ku xiran hanaga ilaawina inaad like na siisaan si ay dhiirigelin noogu noqoto sidoo kalena aad nagu soo biirtaan oo subscribe taabataan